السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسودو هذا ولا ليال جنكين وحب كريبتو ولكن محمد جامع. كل عام وانتم بخير، عيد العافية دمان وحرجينا هنا عيدة أتفرحات الكود عيدين إن شاء الله. حلقة waxaan ku hayaa arrin aad iyo aad u muhiima. Baanka dhexe ee Mareykanka iyo qaraarka interest rate-ka uu soo saarayo maanta oo Arbaca waxa laga filayo iyo qaabka loo eegaba insha Allah xalqadan ku wada hadlaynaa iyo saameynta uu suuqa ku yeelan karo. intayna bilaabin waxaan uga codsanayaa like iyo subscribe channelkan oo saara si walaalo fara badan uu gaaro maartay fiidiyogu oo danaynaya inay ku soo biiraan cryptocurrency-ga ku soo dhawaada. intayna xalqada guda gelin waxay nii sheegayaa inay saddex cisho ay ka hadhay maartay koorsiga isdiiwaangelintiisii. chanceskaas insha Allah ayaanu na dhaafin. fiidiyoga haynu guda galno. maqaalkan haddaynu ku bilowno waxaynu aragnaa investoradoo dhan waxay u malaynayaan baanka dhexe Mareykanka inuu sicirka faa'iidada uu qaado 0.50%. insha Allah website kalena way nii sheegayaa, descriptionka hoosena way nagu soo qorayaa oo accurate amba saxa oo had iyo jeer laga eego sicirka faa'iidada ah, maadaama CNBC wararkeedu maartay uu khalkhal yar uu ku jiro had iyo jeer. laakiin mowqaca rasmiga ee Mareykanka ee had iyo jeer maartay ay kaga hadlaan interest rate-ka iyo intuu noqon karo sanadkan oo saraxatan loo malaynayo inuu ahaanayo kii ugu xumaa ee soo mara iqtisaadka Mareykanka. investorada qaar baa leh maartay haddii baanka dhexe Mareykanka uu sidaa kulba u sii qaado sicirka faa'iidada, suuqyadoo dhan hoos bay soo wada dhacayaan. suuqu doona ha ahaado crypto, stock market-ka, xitaa suuqyada caalamka ayuu saameynayaa, waayo sicirkii maartay doolarka Mareykanka lagu soo qaadanayay oo interestka aad loo yareyn jiray maartay berigii hore amba ayaamihii corona. berigii dhaweeda corona wuxuu ahaan jiray 0.25%. marka qofku maartay milyan hadduu qaato amba $2 bilyan intaas laga qaadan jiray faa'iidada yar. sababta maartay stookyada iyo kriptada iyo waxoo dhan ay u qaaliyoobeen oo maartay si waalan loo iibsadayna qodobadaas ka mid ah. imakana dadku waxay u malaynayaan baanka dhexe Mareykanku culays weyn ayuu saarayaa maartay stookyada caalamka amba suuqyada kala duwan, taasoo ay doonayaan lacagta inay xakameeyaan oo doolarkii qiimo u yeelaan ee ayaamihii dhaweed maartay hoos u dhacay iyo dee si ay u kontroolaan sicir bararka Mareykanka ka jira. website-kana waxaa la yidhaahdaa Fed Watch Tool. kaas ayaynu insha Allah ka eegaynaa si wacan amba ina siinaya maartay bayaanaad amba nambaro maartay boqolkiiba boqol amba boqolkiiba 90 la isku halayn karo amba investorada jawigooda guud si ay u arkaan suuqu halku u socdo iyo baanka dhexe Mareykanka faa'iidada intuu ka dhigi karo. sidayna halkan ku aragno boqolkiiba 99.6 investorada iyo baananka iyo institutionadoo dhan waxay u malaynayaan in sicir faa'iidada laga dhigi karo 75 ilaa 100% wax u dhaxeeya. marka waxay yidhaahdaan 75 to 100 basis points. marka basis point-kaas waxaa looga jeedaa tusaale haddaynu calculator-ka soo qaadano 75 ayaa loo qaybinayaa boqolkiiba boqol. marka waxaad helaysaa sicirka faa'iidada ah oo ah 0.75%. halkan oo ka duwan waxay CNBC ay qoraysay amba ay sheegaysay maartay in laga dhigayo 0.50. marka imika markaynu wada xisaabinay waxaanu aragnaa inay ka kacsan tahay amba ay ka badan tahay intan ay channelkani uu sheegayo. ta kale la sheegayo waxa weeye inay areada u dhaxayn karto amba 1% xitaa inuu gaari karo sicirka faa'iidada. arrintaasna hadday dhacdo sidaan sheegay bitcoin-ka, stock market-yada wax walba hoostay gelayaan, dhulkay gelayaan. taxliishii ayaan dhaweyd aan ka hadlayay oo aan sheegay maaragtay bitcoin-ka xaggaa loo wadaa. imika sidaynu aragnaba waynu arki karnaa maaragtay pressurekan culus ee lagu hayo bitcoin-ka. arrintaas oo saacidaysa in eriyooyinka kala duwan ee ah 30,000 ilaa 28,000 la keeno bitcoin-ka, waayo maadaama sicirkii faa'iidada haddii la kordhiyey dadkoo dhan way la baxayaan maartay lacagahoodii oo suuqyadoo dhan baa hoos wada gelaya. waa ina laga digtoonaado insha Allah tacaala. haddaynu eegna xitaa June waxay u malaynayaan dadku in basis point-ka uu noqon karo boqolkiiba 50 ilaa boqolkiiba 75. intaana waxaa isku raacay boqolkiiba 96%. haddaynu intaana u qaybino sidaynu sheegnay 150 ayaynu u qaybinaynaa 100. marka percentage-ka laga baqayo June 2022-ga waxay noqon kartaa 1.5%. arrintaasuna iyaduna aad iyo aad ugu sii xun suuqa. that's why ban u yidhi ayaantii dhaweed fiidiyogan sameeyey sanadkan ilaa sanadka dambe pressure weyn ayaa suuqyada la saarayaa oo maaragtay meelo hoose ayaa la keenayaa. لأنه wax walba imka waa overprice. sicirkii loogu talagalay ayay inta 10% ay dhaafeen
marka waxaa la doonayaa sicirka in stable laga dhigo doolarkii maraykanka la soo celiyo quwadiisii haymanadu ku lahaa suuqa iyo caalamkaba taana waxaan hubaa ina fursado wacan insha allah aynu ka heli doono kribtada iyo stock marketkaba intaasa maanta inii haya walaalayaal aad iyo aad baad u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullah